annaga waxaan nahay maamul waxaan nahay dawlad goboleedka Jubbaland waxa way in la qariyana sax ma aha beesha caalamka iyo dadka caqliga u saaxiibka ah ee Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in la jaha wareerinayo ummadii oo nala ku magacaabahay waxay yihiin taqaanaa niman Malaysia ah oo mataqaana ka amar qaato Kenya kama amar qaadano maamul jiraanahay saraakiishi baa joogta waxa jooga maamuladii sida mataqaana gudoomiyihii liida loo doolow completely rag oo dhan waan wada joognaa saraakiishi ay joogto wasiirkii baa jooga waxa la leeyahay waa Malaysia ka amar qaadata mataqaana Kenya manihin waxaan nahay maamulka Jubbaland baan nahay waana la soo weeraray waxa la doonayaa in la baabiyo jiritaanka iyo magaca Jubbaland in la baabiyo mataqaana la doonayaa beesha caalamka cuqaasha waxgaradka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa waxa ka dhaca gobolka Gado khaasatan degmada Balad Hawo waxa risaab bloke ninka la yiraahdo mataqaana madaxweynaha farmaajo mataqaana mas'uulka ah wuxuu wareerinayaa beesha caalamka iyo waxgaradka Soomaaliyeed baa wuxuu u sheegayaa waxaana jirin waan taaganahay waan noolnahay waxaan u taaganahay inaan difaacno dadkanaga dawladdanada oo ah dawlad goboleedka Jubbaland oo la doonayaa in la fasaqo lagana sameeyo wixii la doono waxa way maamul jiraanahay waxa way sharciga nin walba wax buu siinaya waxa way wax sharci cusub imaano isku diidaba taqaana ma jirto laakiin waxaan ku dagaalamayna waxa way ma jirto Jubbaland way sidaas buu mataqaana madaxweynaha qaba annagana waan ka soo horjeednaa waxaan codsanaynaa beesha caalamka waxgaradka Soomaaliyeed aqoon-yahanada in mataqaana la arko dhibka iyo barakaca iyo problemka iyo xasuuqa ka dhacaya degmada Buuraxaawo in uu sabab u yahay madaxweynaha Maxamed Axmed Farmaajo inuu sabab u yahay in la wada ogaado annagana aan taaganahay shalana nala soo weeraray wixii baabaa oo dhib ah oo imaada ama hanti ah ama naf ah waxa risaab bloka mataqaana maaragtay madaxweynaha bismillaah marka koobaad waxa u tacsiyeenaya dadka reer Jubbaland ee shacabka ah khaasatan shacabka reer Gado khaasatan Balad Hawo ay wax ku gaareen waa u tacsiyeenaya tacsiyadaas kadib waxaan u maraynaa inta badan dhagaha waxaa looga soo dhacaysay jamhad ah oo kii ay soo hubaysay yaa gobolka Gado